جدًا ما أنت تقول لي كل قوية كذا صور بتاعنا النقد الوسوق إني أما يستشيرنا بقى قرية ورور كم هاي هل كم كم تستعي يبدأ نيرتا هذا كان عادها يبدأ ayaa markan aragnay dhibaato badan oo taabatay dhalinyarta xaafadda gaar ahaan kuwa waxbarasho jecel weliba dhibaatana ay tahay in loo ayaa waxaan isla garanay inaan xaafadda ka furro library isla markaana dadku ay kaga raystaan meelaha kutub ay u tegayaan waxbarashada waayo tusaale ahaan waxaa garan karaa ardayga maanta jaamacadda hargeysa dhigta library u tegaya suuqa dhexdiisa taas baa dhibaatada dareemi kara iyo inteena kale weliba si wanaagsan u fikraysaa dhibaatada fikir wanaagsan loo jahayn kara sideen fikir fiican u keena ujeedada maanta isugu nimi waa taas waxaan doonaynaa library-ga hawshiisa waa wadnaa waxyaabaha soo qabsamay kolley slides iyo computerka aynu ku arki doonaa insha allah halkan baan soo bandhigi doonaa insha allah iyo sida hawsha u qabsantay iyo sida u socoto ma jeclin aan ku dheeraado laakiin waxaan doonayaa in ujeedada koowaad ee maanta isugu nimi inaan iska dhaadhicino library-gaas hawshiisii magaala dhow tahay iskana dhamaystiran bal sidii loo dhamaystir lahaa inta kasii haday loo dhamaystira waxyaaba ugu waaweyn ee ku guulaysay ninka waxa kamid ah in dhulkii oo kale aan soo hayo waxa ugu badan la hibaariyo waa inaan dhulkii helay wasaaradda waxbarashada ay markaa ku filan كمان قيمين يشوفوا كيوم جماعة مكشافة كلها تمام واحد بشرى الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بقى شفاء وصلاة يومين كلها كتب الإبراهيم كنت محسبها حوار الله صار عليه وعلى كان بصورة جديدة. كنت شفاء وصلاة وطبعا برسول الله كل الإبراهيم من أحد المسلمين أنا والله كاشنا يعني دكتور فرد ويجب هاي وشيء تخلي تذكر فيها كان بسوق الكريم كنت قاعد وحنا بنقول في المدينة سوق الله الإسلام بدون شجاعة في الجامعة وعن رد كذا بدأ في مجالات القطاع وعن بقول يعني طرح إنه وأنا أساسنا library قال هل كان بفكر ونحن بهاي نحضر كنت وحنا هذا اللي كنت تصدق لي hawsha runtii waa hawl inoo wada taalaacda dadka xaafadda xildhibaan wasiir dhalinyaro aqoon-yahan cid kastoo ah fadhida waa hawl loo baahan yahay inay ka qayb qaataan haddayna runtii inagu aynaan hawsha ka qayb qaadan nooma maqnaatiin inagu baa xaafadda iskale inagu yani kolba inagu siina hawsha u qaban ayay wixii lagu fulaya run ahaantii library-da imanka magaalada laga bilaabay hargeysa waxaa jirta guddiyo fara badan laga shaqeeyay magaalada hargeysa محمود هيدا كتاب ديننا جعلنا ديننا لحنا بكتوب ديننا كتب ديننا عندك كنت ما كمان رجلي تركي غير كذا ها يتابع عليه بيجي يحسبوا لي كأسا ديننا بيجي وتم عن التقديم وحنوش فتنا أي أول أجنا أنت صار في تحسين بشبهه وحن بتشين هذه هاي عرضنا تبني شنو هو أن تبني كذا كل إسلام بدليل شيء تبغى مساء سبيل ليش تفكري وش بتشران كل اللي بريرجع بدنا يكاد صار اللي يركض كنت راح نركها واحنا لما وآدي مهمة والله بحنا وحوي البرمان فاسدين رنتي راح نروح هذا احنا كل هذا رحمة واحنا كملها أكيد لو دي ستيشن البركة وانقل في رنتي hadday yihiin ganacsato haddii ay yihiin mas-uuliyiin kale oo wada gaarsiiye waa ka xumahay inay dad quroo kale awoodaaftay ma jiro haddii laga tegi waayo wasiirkii hawlaanku ayaa yidhi taasi sidii aan u baxay haddaan soo galay waxaan ku maqnaa guri warshadii coca-cola iyo xagga ah oo aan hawlka hayay kolley dadkeenu aad bay uga gaabeen arrimaha noocan oo kale ah ee muhiimka ah fikir ahaan waxaan odhan lahaa war arrintani arrin la dhayalsan kara maaha meel fiican bay dhalinyarta ay soo gaarsiisay meel aada u qorta dad badan bay soo gaarsiiyeen hadda waxaan odhan lahaa bal ha lagu dayo mar dambe wiilka dambena ha ahaata haddii ilaahay idhaahdo habeenimada shabta soo geli bishdan oo kale waxaan odhan lahaa marka aynu adeegsano dadkeenan madaxda ah sida matalan addo oo kale sida sheekh khaliil oo kale wasiirka iyo dad badan intaynu adeegsano oo fikirkan loo bandhigo hal infood gareeyaan iyagu dadka ha infood gareeyaan oo magacooda ha ku infood gareeyaan ha u yeedhaan oo ballan adag runtii
lagu gaarsiiyo ayaan odhan lahaa si waxaanu ay miradhalo noqdaan iyaguna ay sii dalbadaan dadka muxsiniinta ah ee hawsha wax ka qabanaya ama ganacsato ha ahaadaan dadka firfircoone maxay ahaday fadhigla ku samaysa xaafadda ka jiraan iyo kan xaafadeeda waxyaabaha haystaan waxa weeye inaynu desaano qiimaha uu leeyahay waxbarashada arrinteeda jaamacadaha ma galaan run ahaantii oo waxa weeye taa waxaan dareemay 2007 February markii aan imid jaamacadda Hargeysa waxa weeye markii markaan joogay ardayda qalinjibinaysay markaan arkay ardaydii kasoo baxaysay inta ay leekeen wixii xaafadeeda ka socday waxa weeye waan ka yaabay maalmahaasi adaad ayaa shaqo ka bilaabay jaamacadda oo diintiisa malanaya markii ardayda qalinjibiyeen وانا يجيو حقيقي مرحلة عمرين أنا دكانين سكولين يجيبوا كتير سكولين مركا حين تقول ما الجامعة ده يجي يفتح يطلع عشرة أيام يجيبوا وعلي ثم تفكر يا قيمي قيمة فربنا ما هو حاجة رباعية وأعتقد كم مرة في هذا السنة كل مدة اسمع السنة تركيا ولا مدة تا سنة كي واحد تقول دولار يعني واحد غير قضية تيجي ويكير سايبر يراعي كارثة waxay muuqdo karayo marka taariikh badan ay ku leedahay waxa laga yaabaa dadka beeshooda degan inaanay fahamsanin qiimaha waxbarashada ay leedahay taasoo keenaysa waxa weeye inay wadanka waxa la mid ka jiray inay soo wadacno waxa weeye dowladda shaqada dad way ka wada dhaqanay inta waxa weeye marka la eego dadka sida ugu shaqaaleeyo waxa uu ku tabaruco shaqadiisa kala leeyahay haddii aynaan haysanin dad badan oo jaamacada ka soo baxay waxa weeye meel lagu shaqaysanayay marka waynu ka maqanahay shaqaduna waa meelaha dee dhaqaalooyinka dadka ay kasoo galaan waxa weeye markaa dee dhaqaalihina wuu ka hooseynaya dadkii kale marka inka hadalkay haddii aan soo kooba waxa weeye haddii aynaan tayadeeda waxbarashadeeda iyo tirada ardayda waxay noo dhigataa aynaan badinin waxa weeye mujtamac intiisii kale waynu ka hadhaynaa imika haddii adeegto hay-adaha wadanka jooga يعني انت يقدر لغة شقيقة أدو فريق أدو يرتعي أنا مريد الجارة ما تحكي لكريم هذا هي شقوي كولا إذا كبيش يجب أن يكون يشب بسوداني فالجوغة أيها وحبي الشرط طبعا عن تقير ذلك الانفورميشن طبعا عن أركي وحا عن أركي هذا تتاود انت بجيلي مركا أي تشقيني أودك طلبا هاي تشوفها وحبي هاي بسيح الجيل ماشي من جدال كل اليوم markii ugu horeysay aan shir aan ka qayb galay isagana waxaa kasoo qayb galay dugsiga midham waxay yidhahdeen hay-adana maanta aada la kulanteen waxbay xaafid yani gobolkeego dhanba waxbaba kama qabato meelo kalena markaan arkay dhowr meelood kale marka bishii ugu dambeysay markii aan tegay waxaan arkay yani inaan wax ilaalo wax qabada oo loo qabtaa aanay jirin taasna waxa keenay waxa weeye hay-ad walbaaba dadkii joogaa meesha iyagu kasoo jeedaan inbay geeyo qabadkeeda marka meel walbaaba way ka maqan ama shaqadii ha noqoto ama dhaqaalihii ha noqoto tontoorkaasi uu ka baxay hal mar oo kaliya arday xaafadan maxay hayday haan egas lacagta gacanta waa intaanina lacagta shanaad ku tareysay lacagta guudan isticmaalay waxa weeyaan $364 total balance sheet waxaan kala jarnay $1,000 na soo galay iyo $700 iyo lixdii afar maaray waxaan u tahay inuu yaala isla dawladda doonayaan sida macdiyada shaxda yarna waa qorshaha aadish maamulaya sida bulshada ula tartiibiyay waa dadka si kale qaatay halka soo dhigtay oo ilaa aantii aan bilownay inta laba hawsha la yiri marwaana ismaaciil oo inuu laftiisa hooban uu soo dhigay الحاجات اللي كنا قاطعين يعني يصير دولة مدرسة أنا عايز كل شيء اللي قاعد قاطعين طبعا كان قاعد الله يعني عارف الشيء وشغلنا بقشة اللي قاعد يجي معنا على إسماعيل علي إذا إحنا تيجي الشيء شغالين هذا العمل عبارة عن حاجة خليل كده ترجع سويت وقتي لا مش يعني شيء يعني هو قاعد يتكلم عن كده حاجة يعني يروح في الجبال يبدو ما كده تحملت من بعد من يومين كشغل حوي وقتها حق راي عباشته وأبي وكنا هاي حق راي منهم نكتب مرينا من فوق بالجي ماشي وقت على وين وين ما كان رتي وحنا هرمر كلا
ayaa iskale maxaan ku dhahay dhibaatadiisa maxaan ku dhahay kacaabulkiisa maxaan ku dhahay haddii libadikadi leeyahay mararka qaarkood yani maxaan ku dhahay niyadjabkiisa ayuu iska leeyahay marka ayaynaan horta cabanin aada iyo aada waxaan u akriyaa maxaan ku dhahay website qolo reerkii ay ku sheekaystaan ayaan aada u akriyaa waxyaabahan aada ugu nebcay waxaa ka mid ah waxba ma hayno waxba laynama siin يعني عنان أي نطق على مقرنسة أي نسيني فطلع روحا قبا هذه أي محاضرة حافظة هاي أنت بدل عنان كلهم أيضا ينام بيلكلا أي نجي ينام عسكلا سيني وحوي إنك شوف حاو حكم إذا سببه وحكم إذا محاضرة هاي أيضا مثلا أيضا لا أنا لو سنين أي حكم إذا وأنت تبعون يجيني هذه اللي بدك لي هي ayaa ka mid ah sababaha markaas waxa weeye dadka xaggeena ay jirtaan waxaan ku dhahay reer kale ma jirto reer hebel waxay noo gudbid ma jirto cidii waxay noo gudbid ma jirto markaas ayaynaan cabanin kasoo taawi waddaday naga horreysaan aada iyo aada bay marka waxay u baahan tahay in la yimaado oo laga arrinsado oo laga tashado oo la yidhaaho waa halkee dariiqii aynu horumarka u maray mararka qaarkood waxa weeye haddii la basked leeyahay mararka qaarkood waxaa يعني السبب هو أيضا أن تقول أن جرين هذه أيوسع الله عليه كمية هرمته تبدأ سورة يجيسته تبدأ عشرة تبدأ سنة استخدامها كلا فردا مرة حوالي يروح محمد هاي حوالي أرجعتين إنتوا إنتي سببا لنوحي وبريه ما كان شغال حسب هو وحسب هو كله فوقان كل شيء تلك حافظة هالصعدة وأنا لقي يا أبو ضد أي رسول وصلنا هاي dad yani ka turjumaya dareenka dadkaan ahayn talada iyo arrinka waxaa ka yar ogaa waxaana dareemi karaya waqtigii u horreysay ee fikirkiinu soo gaadho dee ididiiladii iyo farxaddii ay gelinaysay kulli wax badan oo ay qabto sidii loo baahnaa aanan uga qayb qaadan haddana intii taagoo ilahay wax badan oo isku dayay inaynu waxaan la riixi karay waxaynu ku darsan kar lahayd insha allah kulli waxaad moodaa waxaan xaafaddeena looga baranay oo library magaca library ba xitaa dadka loo soomaaliya marmar u baahanayo أنا قريب من دم بدنه لا يبرر يجوي صار حيث مني أنا ما بعرف صار لي يعني لكن وأنا بقول لهم بقولون ده هي يبرر يجو وكل شيء أقول هنا بنعيا فربنا آخر شيء وحيا بعد ما بكرة سيارة وحفر شلون يلا أقول كمتها مركز فكرة كاتين تقول لا يجي به مهاي وحويا كلام بيننا قبل نبدأ بسيم وأنا يبدأ عيننا إن شاء الله بالله الكريم وحيا بكرة ربنا وقبل كرتان يوم كل وقت كده هو بقول بقول محكمة تلا كل شيء اللي بعمله شيء أقوم هو أكيد أديله ممكن أديه كوغا هرمال كقوم لفظ أقوم هوا ده يراهن في مكان يتم فيه حساب بس أقول أنا اللي أقول بسمع هيله هو سعره وشيء سعره هو مرور هو حتى لو أقول عمره كمان هاي أنا حكي عبد الله ده قوم هاي من شوفي مو يعني أقوم يفكر لي يحب يشوف اللي كره هاي هنا سكار ولا حاجة ده لكن كنت دين لا وراها وطين عن وراه بس ما شغال نوري هذا بيحسب بس بقول له حافظ له بيش كلا لا تدفع ولا حافظ كتها يقول لك كور هيا سكتني شو كا بيقول سكتني شو بقى هنا هو بدن قعدت كويس كلا غير بعد كده يردوا إلى ما من فوده لا يبرر احتلت في سدين وقت السرعة كا لا تقول لي استلام السرعة هو بدن بيلاقى بسيط ودي ويصيروا راعيته كل يوشي بحضر شد ولا بيشيء كثير يعني سلامة ما قاطع فرنيش تركي كل أسلام تي وحضر سلامة قاطع لكن وحضر له بدر صدق حتى اسكول كذا يعني أنا اسكول تركب حكومة عشوائية حزب وقومية كان كمثل هايو كل حتى يروح كليش تلاقي جاي كثير اسمه حلالنا بالعربي اسكول تاريخي يوميا جامعة وطن ما أنت تقدر كده اسكول فيش اللي بعدين يبغى في النعم هاي كل واحد له عنده كل حد ساحل ولا خلاص هذا لو نشري واحد بدل من كفاية من الحافظ إنه تيجي أنا عندي اسكول تاريخي كلا قاعد يقرأها واحد شوية كلام ده مقالات ملون بس كده ما كان كده وحب دون لها تفتكر كده قاعد تروح بضل هذا اللي يريد يروح لما يجي لها لولا شاهد أو زين حياة marka la tirkeedi balay oo dhiiri gelin isku waxyaabaha laga dhigi lahaa inaan sabab raado fiican hal mid baan lahaa anigu xagga qolada xukuumadda ku jirto kale waa la ka qaabili kari lahaa inaan idinka yada dhalinyaraha anagu inaanu wixii ku tala gashay oo si gaar ah amaamilo inaan isaga iman weli sidoo gaar ah oo sameeyno midoo wixii looga baahan yahay fikrad ama dhaqaale wixii ku darsanayo halkuu u baahan yahay midoo ka riixi karayo inaan isla eegnay ku qurxan tahay la tirkeedi si beed isla arki doona ilaahay qarash laga tilmaamo ويتنوع في وقتين في هذا ويحيي ناقص ويحيي ناقص ويقول بالله كل الله
يقال إن يكون ذلك البيت واش كنا شنو عملنا شيء كذي من وياك ما يشتغلون مثلا أمور يعني واحد يمكن ينام الشيء قام بالشغل جالسين مشخص صار الآية يصير آية مثلا واحد يقاش من هذا المقام الشافعي هذا لكن ما في تمام التأثير إيه الدين مثلا يرى الله يعني نفس حافظ أنا حليل واحد كفر أنكو هالشيء برنامج شيء بعدنا تغيير ترتي برنامج سوى جاكرية حوشنا نوي عليه ترتي أجي أدي مهتمين قيمة ذلك تقاطع لو تاجره لو هم بديايو لو كرب كرو أي مكان نوري بعدين ومسكا ترتي أجي أدي معنا هنا نجزاكم الله خير هذا كان على هاي برنامج كي كل إمكان تقول شغلان صدق جالسين أن تستان حسب لي يوم تاجين هذي مرة هير لينكو ماموسو أو لينكو شرفو أو لينكو كراميو أو ده مركب على جواز الكسيو كل برنامج لما يصيران أو هم كي ده مال وحتى يوم بأني شيء أي صوبان دكان أدي أدلو ما سنتهين وقت السنة وحلو في أنا فكرة يمكن نظام مركب برنامج كي الأولى قاسيو مركب هم كي وحتى لي حاجة خصوصنا وصلات غلطات أيضا تجسام وكم كمية ولنا برنامج كلا صوب الإنسان آخر اسمها ليبريري أنا وحصل يا دي أنت كيد علم هيدين قيمة إيش هي هذا المريء أنا مشهور هذا دخول من الرغبة هاي اسمها هاي دخول من الرغبة ممكن هذا لقى سبب وقد يقدر ترى مثلا معنا حالة غلطان وحصل يا أنا كيا شكرا ومن تيجي نوي سالايو أنا حضرنا يا قوي كان هيئات أما أنا قد كان لايف أما كنا نقول برنامج كي نمر فوري أو بردقنا إذا كون واحد مثلا هيسن مثلا معنا يجي نقول كذا شيء لا معنا طبعا ما نأكل كتاب محمد دقة education society وايو بقى والله طلابيا يلا بلا غير فيريشة وحن هطيل education مقدام وكوبي شاب وكا الدنيا كلا أنا شام مطلب هندي أسوي مطلبنا على كلا يعني الله كل ما يسوي وحيلا بدنا نلقى فايدة شنو هذا الأصل مرحلة إلى هاي حتى وحيا هاي مرحلة community بالشعب شكلنا وصله community كله شيء نريه community هنا كلها community بقى إيش أطلق الشام فايدين بدهم بدنا إيه مرة كلها تبقى عايزة تبقى لها kulankaas kadib waxaan bilnay seerkii taago seerka ilaahayna haddii waanu taagnay seerkii waanu dhamaystiray sidoo kale waxaa dhalinyarada hayto ayaa waxa uu ku deeqay 10 kabad oo uu siinayo librariga oo ay sameeyeen sidoo kale jaamacadda hargeysa waxay kusoo deeqday 400 buug inta kadibna waxaan ku talagalay inaan si kumeelgaar u sii furo librariga masalada si kumeelgaar ayuu u furan yahay ciddii doonaysana way soo booqan kartaa oo hor waa lagu arkastaa kulankan caawis gudub waxa weeye hawsha intaas soo socotay muddada ay noo soo socotay inaan rabadii inta kale u bandhigno runaantii waan u bandhignay caawina inta ayaan idin soo bandhigaynaa waxaanu doonaynaa bal kulanka halkaanu soo gaarsiinay talo tusaale fikir iyo contribution wixii qabriga uu ku deeqi karayo hawshaa inuu ku deeqo laakiin haddii aad waxaan uga xumahay horena waan u sheego dadkii aan doonay inaan soo gudbo dhammaantood ayaan ma wadaagnay oo aan ugu talagalay stationada aanu siinay waxaan aad iyo aad wax looga xumaadaa qof presentation soo kugu waqti ku imanay macnaheedu waxaa ka muuqata inaan tixgelin badan waxaa la siinahayn haddii qof kastoo xaafadda ka dhisan waayo waa hawl anagana taabatay يعني إذا أنا مواد موضوع واحد بدون دفعنا هنا يدفع هم كارهان لابد بأسلوب إفكار community level بدون حافظ تكرير تلي وحنيا أنا قوم بميران هاي كحد بدونا فايدة يو نيمة دولية لابد يو بقولاتي يتحرك لما صومر لابد يهرس وصومر أنا قوم دوني نقول هذا لابد يوم بيلومي يفكر كي توقع يعني لبضة كلية شنطي أيوب لا لكن وحي هاي الوقت حساسية أولد ما حساسة في فكرة يعني أنا هذا بروفايل كان تقول لي كيف يدرس حضارة الكلية
labada kun iyo sagaalkii ayay ahayd dadkii dib macnihii loo eegay tallaabooyinkii iyo fikirkii sanadkaasi la bilaabay isagoo waqtigaan walba tallaabada la qaadayo ee halka looga dhaqaaqayo markaasaa la taagay la qaadayo labada kun iyo sagaalkii ayaa waxaa ururka haybo iyo dhalinyarta jaamacadaha ee dalka oo kala duwan ay bilaabeen macnihii wadatashi ay kaga tashanayaan bal sidii wilaabareeri cusub loogu dhigilaa xaafadda run ahaantii fikir fara badan oo la weydiiyey oo loo qatay markaasi laga soo horiyey ardayda iyo ardayda aqoonta u saaxiibka dhalinyarada jaamacadaha kadib waxaa la iska gartay in la raadiyo halkii ugu muhiimsanay wilaabareeri ka dhigi kara sidoo kale library runaantii maadaama waxay wax shaqeynaya kadii loo xiray naga dhimaya kadii loo sano waa lacag ilaa $2,000 $2,500 bay noqonaysaa dadii fikraankiina in soo qurba joogtaan waqtigiina iskaadigi dadii fikraankiina inaad ku soo darsataan ayaa waxaan ku doonayaa inaan kula maxaafada u qabano waxa kaloo nusnay library sabro ku meel gaar ah arki doontaan library gaas oo dhalinyarada ku akhristo laakiin buugaagta yeelaan waxaan kulanay Cabdillahi Xarri waan kulanay yani kula wanaagsan baan la qaadanay isla waan kusnay library furan halkana waan kulanay waxaan doonaynaa walaalayaal inay qabataan oo maaragtay xagga buugaagta xoog aad nagu saacisaan ودي كاركينا دشكينا نقول مالين بفربان ونقاشنا مركا ما أنت وحنا قبل إنا نحافظة بس يلي وأقولني والله تفهم كلا يعني تبيعوا بشاكا ما أنت ولا ده قري ولا ده مجال ما أنت وحنا مقابلنا يعني ما أحسب 100 بتاع 100 بتاع PhD 100 وإحنا قري كنا ما أنت أنا أقول لهم خلوني إن وبحين صوب حياة أنا أودي أرجعينه إلى تاج خيطان بعد ما هتنتهي إذا كانوا يقول بني كينيا إن شاء الله وصوب حياة وحين ذكر كينيا إذا كنت إن نوصل يعني